السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا جعلها كسود وهذا channel كيجا قاعمة فرن إيه قلبي فرن أصحابي ما أنتم حاني ودا chicken برياني مركان سوكرين سيدان قروح بدن وكسب بحي وقضى إن بعادة هن أصحابي وقضى الصير وفضل لوك سمينايو إن شاء الله واتكهل الدونتين هداد عصبتا كسو بير فاميلكا سبسكرايب كتاوا جنباليل كنفرو كما قصار الدونتين إن شاء الله daawasho wacan asxaabe bismillaahi in asxaabi halkan waxaa igu shiilmanaysa basal 3 xabo oo basal aan si yar oo wareegu soo jarjare saliida ku shubo waan shiil wax kale kuma dirin basasha la soo shiile haddana waan ka baxsanaa basasha saliida marraba basasha bisaan ka baxsaneynaa insha Allah doodiya bariis ku quruxsaneynaa asxaabe asxaabi halkan waxaa ku jiro qaando oo xawaash isku dardar ah qaando kaaribooda iyo tuun aan soo tumay hadda waxaan ku soo daray qudaarta qalalan oo hal qaando ah waxaan ku soo darayaa chicken masala oo 2 qaando ah maasha Allah spices ka adiga waxaad jeceshahay ku darsan kartaa bora to ina spices ku darsido wixii guriga ku yaalan isku dardarso ku darso inuu dhadhan macaan badan yeesho leel rabaa hadda waxaan ku daraa soya sauce 2 qaando waxaan kaloo ka iloobay kaamirada ma daarneen waxaan ku daray liin dhanaan jeex iyo qal oo 2 qaando iyadana marka laan waxaan ku dareynaa buttermilk haddaa adi haastid yogurt waa ku darsan kartaa marka hadda chickenka aan dhex gelinaynaa waxaan ku daray cusbada iyo qalka iyo liin dhanaanta cusbo qal iyo liin dhanaan intaas dhadhaan waa marka dhadhanka adiga iska fiiri wixii dhadhankaaga ah ala taqaan qiyaasta marka chickenka aad isticmaaleen waxa way full chicken waan iska soo dhaqay waan soo nadiifiyay skinka kama fiiqin waayo flavor uu leeyahay waan ku dhaafanay hada daarto iska fiiqi kartaa maqaarka kore marka lahaaneta isku qaseena waa marinate gareynena muddo 30 minutes 1 hour intii ala adi awoodid maasha Allah si fiican ugu dhaxgaliye fridge ka la gelinaa hadda fridge ku oolina banaankaas ka dhigan kartaa halkan waxa uu karkarooy biyaha bariiska ku karsan lahayn waxa ku daray marka hore heel star waxaan ku daray qorfo waxaan ku daray dhagayaro iyo saliid 2 qaando halaas isku soo karkareen hadda cusbaan ku daray iyo bariiska marka bariiska aan karsanayo waxa waay 2 koob iyo bar waay hada qiyaasta karsanaysa aday ku jirtaa biyahana maxaa rabo in bariiska oo soo buriyo 2 mar kadib ka miireena ma rabo inuu bislaado maasha Allah bariisa inaba caadi hana ka soo bixi doona doolaha idmo hal ku dhagneen waa kaasa markuu soo buriyo 3 mar camal waan ka miirayaa waa diyaar biyaas badan dib male waa laga miirayaa leh asxaabe halkan digsiga aan ku karsan lahayn soo saare saa inii sheegay
chicken biryani sameysanoona oo si yar oo fudud oo qurux badan oo loo sameynayo. Marka digsiga hadda wax kale kuma ridin hoos baradhaan soo taxay. Baradho si yar u soo jarjara oo soo taxay waayo ma rabo inuu chickenka iga gubato. Marka chickenki oo dab la saarin fridge sa ugu soo bixi waay aan ku soo tixaya. Marka qudaartii dheecaanka meesha ku heri buttermilk spiceska ma la daadinayo saas ugu wada shubaya. Marka hadda waxaan soo saarayaa yaanyo 2 xabo yaanyo oo wareeg ku soo jarjare. haddaad rabto kabsar caleena markaan ku darsan kartaa. waxaad jeceshaa saaran kartaa. maasha Allah yaanyadu waa ku soo dhammeey basashii aan soo shiile aan wax yar saas ugu korbitinayaa. maasha Allah bariisa inaba caadi hana ka soo baxay asxaabe waad ka heli doontiin. hadda korka waxaan ka saareynaa bariiski haaf markaan ku shubo kadib haddana basashi ku dhameystiraa. waxbaa ka baqin doorada way ku kareysaa insha Allah asxaabe. marka basashii markaa kor ka soo saara halii kale u dambeey hadda waxaan ku soo dhammaystirayaa bariiski haafki kale here. maasha Allah bariiski dhan oo ku soo dhammaystira asxaabe. waxaan korka ugu soo daadinayaa zabiib. zabiibkaas ka soo dhaqne korkaas ugu daadinayna. waxaan ku darayaa 3 qaando oo saliid ah. kadib hadda waxaan kaloo ku soo darayaa food color yar aan gees ugu soo shubaan soo qase. maasha Allah food color-ka ku shubeena asxaabe. marka waxaan sameynaynaa dabka la saaraya. waxaa sameynaysaa 15 minutes dabka meesha ugu dambeysa u geynaysaa. kadibna 45 minutes dabka meesha ugu hooseysa u geyn ku huuraya. marka chickenka dheecaankiisa iyo bariiska wuu kugu bislaanaysaa. chickenkan ku karaa mana ka gubanayo. hadda dabkan soo saarnay 15 daqiiqo dabka meesha ugu dambeyso ayaa ka geynaysaa. 45 daqiiqane dabka meesha ugu hooseyso oo ku huurinaysaa. maasha Allah asxaabe waa kana marka bariiskeena dabka ka soo dejina waxaan ku dhaxal hal ku dhagay male. chickenka iyo laftan way kala dhucaysaa asxaabe. inaba caadi ma ku dhaa waxaa waa qado oo fudud qado qurux badan oo indhaha soo jiidanayso qado ni cajabinayso asxaabe.
kaga dhis familkaaga ugu soo tuur qadada insha Allah. Haddii ay ku cusub tahay ku soo biir familkeena, subscribe-ka noo saar, gambaleelka fura saad u noqotid daawadaha koowaad. Haddaa nala joogi jirtay like, comment, share intaba nagu caawi u share garee asxaabtaada kale si u ogaadaan channelkeena. insha Allah wixii ra'ay aragtina hoos commentiga igu soo reeb. inta videoga kulmeena asxaabi waxaan iga tagaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.